iyadoo ay sanadihii u dambeeyay dalka ka jirtay abaaro daran oo biyo la'aantu dheer tahay ayaa waxaa bilowday dadyowga ka soo barakacaya miyiga kuna soo xaroonaya tuulooyinka iyo meelaha ay isleeyihiin waxaad ka helaysaa nolol dhaanta tan ay ku sugan yihiin. haddaba waxaa duleedka magaalada Og oo ku dhowaad 21 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalo madaxda gobolka Saraare Caynabo soo gaadhay qaxoontigii ugu tirada badnaa abid kaasi oo kor u dhaafaya 750 qoys oo ay saameeyeen abaaro biyo la'aan iyo hoy la'aan ay kala kulmeen goobahan ay ku soo barakaceen. waxaana goobahaasi booqasho xaalad indhayn ah ku tegay barasaabka gobolka Saraar Professor Ibrahim Xaaji Xasan Cali isuduwaha dibudejinta qaxoontiyada iyo barakacyaasha gobolka Saraar Xasan Aadan Gedi iyo xubno ka socda hay'adda DRC xafiiskeeda magaalada Caynaba balse waxaa halkaasi ay kula kulmeen dad ay ka muuqato diifaadu liidata oo aan haysan hoy iyo cunto. isuduwaha dibudejinta ayaa ka dhawaajiyay inay baaq u direen wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adaha caalamiga waxa jirtay cabashooyin nooga yimi tuulooyinka xalibixisay iyo tuulooyin fara badan oo gobolka ka mid ah in ay dadku ku soo qulqulayaan iyagoo ay cayaalnimo ay ku dhacday oo xoolihii ay ka baxeen. sida awgeed waxa laga maarmaan noqotay xukuumaddu inay warbixinta nagu soo siisay in aanu u sameeyno gobolka Saraar wiraan shan xero ila gudoomiyaha gobolka Saraar Professor Ibrahim Xaaji Xasan Cali ayaa halkaasi ka soo jeediyay duco dheer oo taabanaysa dhinacyo badan waxaanu ku dheeraaday inay hay'adaha dalka ka shaqeeya ay dadka la damceen inay madhaan isagoo qaar kalena ku eedeeyay inay xilligan hayaan raashin bakhaarada ugu jira wuxuuna ku celceliyay inay hay'aduhu degdeg ugu soo gurmadaan dadyowga ay abaaruhu saameeyeen. gobol aanu gacanta ku hayno de aanu dadkaas siino maanta runtii ma hayno xataa talagal aanu ka sameynay oo qorshaysnaa oo aanu ka sameynay runtii ma jirin oo de aanu dhawaan baabaanu warka helay. dadkan waxaad moodaa dad uun dhibkii markay uun meeshayna ku soo qamaameen oo ay meesha ku habsadeen uun warbixin badan oo laga hayay wax laga hayay inaan jirin baad moodaa. marka runtii hay'adaana in badan ayaan warbaahinta ka hadalay oo aanu duruufaha gobolka ka jira aanu qayladhaan ka diray dhagahana inay faraha kula jiraan baad moodaa inay labada dhagoodba faraha ay geliyeen baad moodaa oo cid ay u jawaabayaan aanay jirin waxay qabanayaanna ma garanayno. hay'adahan dalka jooga la samafal baanu runtii wadnaa ujeedada ay leeyihiin dalka u joogaan ilaa hadda maanu fahmin. maalinta dadku sidaa u baqteeyay ee ay gargaar u baahnaayeen waxaad moodaa inay qaarkood mashaariic kala soo rarayaan oo yani markaa ama baahi kale aanay jirin. waxaa jira hay'ado gobolka lacag fara badan u haya oo la yiri lacag fara badan oo gobolka geliya ayaa jira. waxaanu kalaanahay war wax dadka waxtar u ah ama markaa baahida markaa joogta yani markaa waxa weeye dabooli karta wax ugu qabtabaanu kalaanahay ilaa hadda. haddii aanu niraahno mashaariicda ay wadaan ee aan maaragtay ahayn ta markaa taagan ama tii waxtarka u ahayd ay wadaan ee lacagta badan ku bixinayaan iyo shirarka yaryar iyo yani markaa asasbanada ciidda ilaahay ka badan iyo gawaadhida ka xaysanayaan iyo lacagta iyagu burburinayaan. haddii aanu niraahno waxaan joojiyo dadka wuxuu qabtana waxay u tusayaan dadkii in mashaariic ay u wadaan la iska hortaagayo. marka xaqiiqatan dadkan ilaahay buu leeyahay oo runtii ilaahay baa ayuu leeyahay. si kastaba ha ahaatee xaaladahan ka sii daraya ayaa badanaa sababa inay soo dedejiso dhimasho ku timaada dadkan saboolka ee ay xooluhu aadka ugu baxaan walow ay jirto dhimashada gabadh 11 jir ah oo la xaqiijiyay inay macaluul ugu dhimatay tuulada Barkada oo ka tirsan degmada Wardaad. maxamed aadan dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Caynaba.